nin muslima oo dadkeena ayaa maalin maqlay inuu dhoofayo wadannada reer galbeedka marka ayuu rabaa inuu ubadkii reerkoo dhan u qaado markaasaan salaamnay oo salaamu calaykum ma sha Allah bal warano waxa igu maqal inaad dhoofaysid markaasuu haa waan dhoofayaa waxagee tagi dhulkaas maxaa jira wuxuu qaaradan Afrika la yiraahdo la iskuma hadlayn karo buuri nabadgelyo ma taalo tacliin ma taalo caafimaad ma yaallo shaqo ma taalo system ma shaqeeyo kolba ninka meesha haystoon baa dadka ku jooga marka wadannada horumaray ee nabadgelyadu ay taalo ee dhakhtarka iyo tacliinta fiican leh ayaan ciyaalka mustaqbalkooda la raadsanayaa buu yiri u fiirso Khalid ibn Sa'id eeg shalu islaamay abihi baa ku leh baadiye bi ku silmaayo markaas uu jawaab u leeyahay arabka ma waxa jawaabaya waa aqeedada ayaa jawaabaysa iimaanka qalbigiisa ku jira jawaabayo ku leh aba hadda adigu baadkii biyahaaga adiga mancisatay aniga ilaahay baa iqoodanayo siinayay buu ku yiri Khalid ibn Sa'id uu yimid nabigu yimid alayhi salatu wasalaam waa markuu nabigu jooga daartii Arqam ibn al-Arqam halka buu nabigu xataa masaajidka xaramka looma ogolayn halka buu nabigu saxaabadiisa quraanka makkiga makka ku soo dagay ee aayaadka quraaniga makkiga iimaaniyaadka aakhirada ka waramaya iyo qisasul anbiyaa iyo wal as-saabiqa ayuu markaa nabigu dushooda ku akhriya iimaankooda ayaa markaa dhismaya yaqiintoodii aqeedadooda ayaa la dhisaya oo tarbiyadeynaya nabigu alayhi salatu wasalaam dadna maalmaha kamida wuxuu maqlay Khalid aabaha waa sankaraad dadna markaa buu soo socday aabihii oo sankaraad buu dul yimiday odagii dhalay markaa buu dul joogsaday odagii baa sida u eegay ma Khalid ba ha aaba waa Khalid weeyaan diintii Muhammad ma ka soo noqotay markaasuu yiri may aaba may kama soo noqon kama soo noqonayo mid iga qor buu keenay mid iga qor hadii xanuunka aan ka kacab yiri maanta ilaaha Muhammad ma ka lagu caabudo maayo buu ku yiri Khalid ibn Sa'id uu maqlaya hadalka gaalnimadu aabihii uu ku manaamay inuu naar ku dhacayo qiblada intuu u jeestay ayuu yiri samada intuu ayagu gacmaha cirka u taagay buu ilaahu aabahay mowqifkiisa wali ma bedelin halkaas oo ma taagno ilaahu xanuunka ka kicin ilaahu ku qaad buu yiri isagana oo habar xanuunka inuu ba ka kicin ilaahu ku qaad ilaahay waa ku qaaday xanuunkii gaalnimadiisii jahannam uu la tagay wal ciyaadu billah waxaan ka wadaa saxaabada rasuulka radiyallahu anhum islaamnimada hadduu saxaabigu muslim yahay isaguna ma aragtaan aabihii iyo hooyadii dadkiisu gaalnimada ku sugnaayeen Abu Hurayra radiyallahu anhu markuu islaamay hooyadii oo daa gaalnimada wali baaqi ay ku sii tahay markaas Abu Hurayra nabiga u yimaada alayhi salatu wasalaam markaas nabiga cilmiga ka barta haddana hooyadii buu u tagaa uu soo khidmeeyaa mar ali markuu u tagana dacwadu u bandhigayo risaaladu u bandhiga markaaba iska diidayo tirada ila dhaaf diintaada aanu marabi diintaade maalmaha kamida Abu Hurayra Allah raali ka noqday isagoo ilmadu ay ka yaacaysa buu nabiga u soo galay alayhi salatu wasalaam markaa buu nabigu ku yiri ya Abu Hurayra waa maxay oohintan maanta maxaa ku ila ooyeysa ii sheeg wuxuu yiri ya rasuulallah hooyaday waa mushrikad oo gaalnimadii bay wali iyo shirkigii bay ku sugan tahay markastana waan u bandhigaa risaalada iyo tawxiidka waan u bandhigaa way idiidi jirtay laakiin maanta hadal aan u adkeysan waayay bay igu tiri buu yiri oo hadalka waa maxay hadalka waliba adigay ka tiri adigay kula jeeday hadal xun oo adiga aanan ku qalmaynin ayay nabi Allah adiga kugu tilmaamtay nabi baariya ayaa tahay oo barakaysane u ducee hooyaday ilaahay inuu soo hadeeyo markaa buu nabigu alayhi salatu wasalaam ayuu gacmaha cirka u taago wuxuu yiri Allahumma hdi umma Abi Hurayrata Abu Hurayrahan hooyadii ilaahu soo hadee Abu Hurayra hooyadii ilaahu soo hadee dadna Abu Hurayra radiyallahu anhu wuxuu yiri anu ducadii nabiga alayhi salatu wasalaam bishaaraysan in la ii aqbalay ayaan orad isqaaday buu sii daayay dadna markan shanqadhaydii markay maqashay ay hadasho waxay tiri ha ii soo galina dibadda joog waan istaagay waxaan maqlay markaa biyaha ay ku meedhanaysay shanqadhoodii sawdkii markaasaan nidhi way meedhanaysaa ma sha Allah markaa bay tiri ii kan maradii baan u dhiibay soo gal
shahaadateynka ii qaba bay ku tiri waan islaamayaa bal fiirso u laqinay isagoo ooyaya buu nebigu u yimid sallallahu alayhi wasallam oohinta nimanka waa farxad maxaa dhacay abaa hurayrow yaa rasuul allah ducadaadii ilaahay waa aqbalayo hooyaday way soo islaamtay buu yidhi sidaasay saxaabadu ahaayeen laakiin innaka maanta ilaahay waa inoo nicmeeyey haddaan abtirsanno 20ka oday 30ka oday aad ku abtirsanaysid hal oday oo gaala laga heli maayo jadka jad waxaan dadkan ka soo jeedin wada muslimiin oo wada shahaadanayay oo qaarkood innagay naga tawxiid fiicnaayeen oo naga diin fiicnaayeen oo naga dhaqan fiicnaayeen oo naga dadnimo fiicnaayeen oo ducadooda ilaahay aqbalayay tabaaraka wa tacaala oo waxaad laga yaabaa inaad ka soo jeedid dad xalaal mirada oo dhaqan wanaagsan leh nin culimada muslimiinta kamida oo inuu yahay baan u maleynayaa Masri ayaa tawaasul al-ijtimaacigan ban ka daawaday maalin lajnatu tahkiim wadanada Scandinavia wadan kamida ayuu musaabaqatu al-Qur'aan buu markaa ka qaadayay waxa dhacday markaa wuxuu yiri waxaan idhi Sweden ayaa ka socda yar Soomaaliya soo kacay buu yiri waan yaab Australia ayaa ka socda oo Qur'aanka musaabaqada uga qayb galaya waa Soomaali buu yiri America ayaa ka socda waa Soomaali London ayaa ka socda UK waa Soomaali wuxuu yiri ma garan kara buu yiri xidhiidh baa jira buu yiri xidhiidh waa hadalkan ku ta'athuray aad ay maartaan ay taabtay wuxuu yiri maaha innika buu yiri laga yaaba aabayaashiin dadkaad ka soo jeedaan laga yaaba inay jirto sir iyo ka ilaahay u dhaxaysay waa waxa ilaahay quraanka inoogu ilaalsanaya weeyaan bifadlillaahi azza wa jalla wa bikaramihi meel badan oo adduunka aan maray oo safar dacwadeed u maray masaajid kuma tukado illa imaamka salaada tujinaya waa Soomaali qaariga salaada tujinaya waa Soomaali marka nicmada ilaahay nagu galadeystay nicmada al-hidaayah nicmada al-iimaan wal islaam nicmadaas marka han qadarino oo ilaahay han ugu mahadino oo han ku shukrino oo nicmada dhulka ha dhigin ha dayicin meel kor u qaad waxa ugu qaalisan ilaahay adduunka dusheeda uu dadka u siiyo waa hidaayadii baan haysanaa marka nicmada ilaahayna siiyo waxaan u baahanahay inaan ilaashano oo ku amal fallo oo ubadkeena barno oo inagu diinteena barano oo inagu diinteena ka shaqeyno waa saddexda diintu ay ku ilaalsanto waa saddexdaas al-ilmu wad-da'watu wal-amal al-ilmu wal-amalu wad-da'watu ilayhima cilmiga ina diintaada barata waa fariidatun ala kulli muslimin wa muslima ina diinta aad taqaanana aad ku amal fasha waa qiyaamaha la isweydiin doona wal quraanu hujjatun laka aw alayka quraanka iyo diinta ilaahay ku siiyay maaliga qiyaamaha ama xujju kugu furi doona ama adigu quraanku xujjo ku noqoni doona as-sawm wal qur'anu as-siyam wal qur'an yashfa'an lil 'abdi yawm al-qiyamah yaqulu al-qur'anu منعته النوم في الليل فشفعني فيه ويقول الصوم ويقول الصيام منعته الطعام في النهار فشفعني فيه حديث معنيه سوها النبي وكيلها لبا قيامها وشفاعات قاضيا لبو صومكنا وشفاعات قاضا قفك الصوم جري ووحو كورنيا يا ربي أدونك دوشيدي مالنكي أيا شهودي سكربه إرجانه إله إرجدا يقبل بورنيا إرجان وهاي quraankuna waxa uu leeyahay habeenkii buu kici jiro iyo akhrin jiray ilaahu shafaacad ergaanu wahe ergada ay aqbal buu isaguna leeyahay quraankii marka hadda diintan ku amal fasho maalinka qiyaamaha diintu iyada ku shafaacad qaadi wad-da'watu ilayhima iyo in dadka muslimiintana barashada diinta loogu yeedho salaada loogu yeedho gabdhaha u yeedhaan asturka loogu yeedho dhaqanka wanaagsan loogu yeedho haddaad adigu daaci noqonood ummadda khayrka ugu yeedhin adigaa lagu yeedhin ad-da'watu ila allah fariidatun sharciyyah wa daruuratun bashariyah waana min asbaab al-hidaayah wad'u ila rabbika innaka la ala hudan mustaqiim nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam baa ilaahay kulaha dadka xagga rabbiga ugu yeedh hadda dadka xagga rabbiga aad ugu yeedhaysid
dariiqii mustaqiimka hanuunkii baad dul saaran tahay baa nebiga lagu yidhi dacwaddu markaad ummadda khayrka aad gaadhsiinaysid waa min asbaab alhidaaya waa asbaabta aad ku garan karaysid nicmadda ilaahay uu ku siiyey qadarkeega marka nicmadda ilaahayna siiyey islaamnimada han ku shukrino ilaahayna han ugu mahadnaqno meel kale indhaha u taagtaagin